khubro luqateena ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda qaska ah ee ciidanka Israa'iil ka dhex jirta ay caddeyn cad u tahay in Israa'iil ay ku guuldareysatay dagaalka marinka Gaza. waxaana hadda su'aalo badan oo waaweyn ay ka imaanayaan xaqiiqada ah cidda dagaalka ku jirta, iyadoo ay soo baxayso in dagaalyahano ajnabi ah ay ku sugan yihiin marinka Gaza. intaa waxaa dheer in shirkado garaar loo leeyahay iyo caloosho u shaqaystayaal dagaalyahana in ay qayb ka yihiin. qorayaal iyo cilmi baarayaal xagga siyaasadda ah, gaar ahaan nin loo yaqaano Moyen Mana, ayaa waxa uu aaminsan yahay dagaalka marinka Gaza ka socda in uu guuldarro weyn u yahay ciidamada Israa'iil, ciidankoodina ay tartiib tartiib u dhiig baxayaan, gaar ahaan kuwii lugta ku galay marinka Gaza. waxaana muuqata qalabkooda militariga iyo duqeynta ku socota ee ka imaanaysa xoogagga Falastiiniinta iska caabinta wada ee joogtada ah in ay burburisay agabkoodii, ciidankoodii, saraakiishooda. wuxuuna tilmaamayaa in codsiga la soo jeedinayo ee xabad joojinta inta badan ah ay ka muuqato in Israa'iil ay qaati ka taagan tahay dagaalka marinka Gaza. waxaana arrintaa ka shafaysa sida ay wax u socdaan iyo dhibaatada jirta. wuxuuna in 5 bilood uu dagaalkan qaatay in Israa'iil ay gaari weyday hadafyadii ay jeexatay ay ka lahayd marinka Gaza, ama ha noqoto godad ama ha noqoto farsamo ahaan. waxaad moodaa in ay waxba gaari laadahay. wuxuu kaloo intaas ku daray dhibka haysta ciidamada Israa'iil ee dagaalka marinka Gaza ka haysta waxa u muuqdaa in aysan awood u lahayn in ay ogaadaan cidda la dagaalamaysa iyo natiijada ka dhalatay in ay indhala yihiin oo wax xoga aan haysan cadowga ay la dagaalamayaan. intaa waxaa dheer farsamo ahaan in aad iyo aad ay fajiciso ugu noqotay in meeydaanka dagaalka looga gacan sareeyo lagana xirfad badan yahay. waa gartay arrimaha sidoo kale khubarada waxay ku daraysaa xogta ku saabsan hoos u dhaca ku imaanaya askarta iyo waliba saraakiisha. halkaas maxaa laga yiri? dhimashada iyo dhaawaca kumanyaal askar Israa'iiliyiin ku timid ilaa intuu bilowday howlgallada loogu magac daray duufaanta Al-Aqsa iyo dagaalka lugta ee 27 Oktoobar ciidamada Israa'iil ay ku galeen marinka Gaza ayaa waxay xoojinaysaa in loo baahan yahay in Israa'iil ay ciidamo dheeraad ah qorato oo darajadooda kala duwan tahay saraakiil iyo askarba. warbaahinta Israa'iil ayaa waxay ku waramaysaa in ciidamada hoos u dhac weyn uu ka jiro, dhimasho qaar ay ku timid iyo qaar cawarmay, in loo baahan yahay 7,000 oo saraakiil dheeraada sida lagu qoray wargeyska la yiraahdo Yacood Ahronoot oo soo xiganaya bayaan laga soo saaray saraakiisha ciidamada oo dalbanaya in ciidamadaas si degdega loo geeyo goobaha dagaalka. bayaankaas ayaa waxa uu muujinayaa in loo baahan yahay in la dalacsiiyo 7,500 oo askar loqole ah si ciidamada iyo saraakiisha meesha ka baxay loogu bedelo. xukuumadana waxay ogolaan kartaa oo kaliya 2,500 in la dalacsiiyo, miisaaniyadda dagaalkana in laab laga dhigo. wargeyska ayaa sidoo kale tilmaamaya in saraakiisha qaarkood ay aad ugu dhib badan tahay in ay tababaro siiyaan askar cusub, waqtiga iyo dadaalka la rabo in lagu bixiyo askartaasna una ku filnayn. waxaana hoosta laga xariiqayaa in ciidamadii gaarka ah ee Givati loo yaqaano in ay go'aansadeen in ay diidaan inay dagaal ka qayb galaan marinka Gaza qaar ka mid ah, sababtoo ah waxaa hoos u dhacay kala dambeyntii iyo kala amar qaadashadii. waxaana muuqata in haddii ciidamadii
ugu xirfadda iyo aqoonta badnaa uu khilaafkaas ka dhex taagan yahay in ciidamada kalena ay xaalkooda kasii daranta. waa gartay sidoo kale waxaa la hadal hayaa saraakiil iyo ciidamo xilli hore shaqada ka tegaya ama howlgab noqonaya ama ka ruqsaysanaya. maxaa ugu wacan arrimahaas? warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegaysaa in taliyayaasha ciidamada ay ka baqayaan inay dardar gasho, in askar badan ama shaqaalo badan oo wasaaradda gaashaandhigga ka tirsan inay shaqada isaga tagaan. waxaana hoosta laga xariiqay qaskani inuu bilowday xilli ciidanka uu u baahan yahay inuu tiradiisa kordhiyo. waxaana muuqata in la rabo in ciidamadaasi ay wax weyn ka qabtaan dagaalka hadda xaaladiisa aad u xun tahay. saraakiisha sarsare ee ciidamada Israa'iil ayaa aad waxay uga walwalsan yihiin dooda hadda ka taagan in dhalinyarada ciidanka ku jirta intooda badan in aynan ahayn dad khibrad leh oo dagaal ka qaybgeli kara. waxayna rabaan in ciidankaasi ay ka fakadaan ciidanka maadaama aynan qaadi karaynin culeyska laga rabo ciidamada kaydka ah ee khibradda badan aan lahayn. culeyskaas ayaa waxuu ku dhacayaa baa leeyahay ciidamo dhalinyaro ah oo khibradooda yar tahay, intooda badanna waxaa laga dhigayaa ciidan joogto ah si ay u taageeraan dagaalka hadda socdo sida ay warbaahinta Israa'iil ku waramayso. waxaana hoosta laga xariiqay in wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil hoggaankeeda gaar ahaan inay ka walwalsan yihiin saameynta ay yeelan karto ciidanka sirta ee militariga, iyo gaar ahaan in qaar ay aaminsan yihiin mas-uuliyaddii ciidanka sirta inay hoos u dhacday, lagana baqayo in saraakiil fara badan in ay si wadar ah ay shaqada isaga casilaan, taasoo culays ku keenaysa ciidamada Israa'iil oo awalba hadda dagaalkana ku jabay, qaar badanna ay dhaawacmeen. hadday qaar kale oo badanna si wadareeda shaqada oga tagaan, waxaa caddaanaysa in howlgalkii Israa'iil uu fashilmayo. janaralka 14aad ee Israa'iil ayaa waxa uu dabool ka qaaday in daadad ciidanka ka mid ah ay iscasilayaan oo ay ka mid yihiin saraakiil iyo askar ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga, sida uu sheegay afhayeenka militariga, ayagoo diidan baa leeyahay howlgallada marinka Gaza ee ciidanka korka laga saaray. waxaa sidoo kale la sheegay sida warbaahinta Israa'iil ku waramayso in askarta xirfadda gaarka ah ee commandoska iyo askarta kaydka ah ay ku dhawaaqeen inay diidayaan inay ku biiraan ciidanka ka dagaalamaya marinka Gaza. wargeyska afka Hibriga ku soo baxa ee Haaretz ayaa asna ku waramaya in koox ka mid ah askartaasi, gaar ahaan kuwa khibradda badan ee Givati la yiraahdo, in ay diideen inay ka qayb galaan dagaalka marinka Gaza. waxayna ku eedeynayaan militariga inay dayacaad ka muujinayaan badqabta xagga nafsiga ah iyo xagga jirka ee askarta.